waraabacade waa aabbo Soomaaliyeed isla markaasina ku sugan gudaha magaalada Woodward kuna tabaalaysan isla markaasna duruufo kala duwan ay ku xeeran yihiin isla markaana markaasi qof aan laxaadkiisu u dhamaystirnayn. ninkan ayaa waxaa ka muuqda dhibaatooyin aad u fara badan isla markaana waxa uu baaqiyo kala duwan u jeediyay dhammaan ummadda muslimiinta waxaana uu ugu baaqay inta kalaamkooda in ay ka soo qayb qaataan baahiyo aad u fara badan oo uu ka cabanayo. baahiyahaas oo sidaydii ka muuqata aad ku aragtaan dhibanahani waxa uu ku waayay laxaadkiisii dagaalo kala duwan oo ka dhacay kal hore degmadani Woodward iyadoo isla markaasina halkan uu u hoydaa ay tahay markaasi goob cidla oo xilliyada roobka iyo dhaxamaha ay dhacayaan aysan ahayn goobka difaacda. sidoo kale waxa uu sheegay in uu ahaa markaasi qof u xoogsada naftiisa isla markaana imika mid ay haysato duruufo kala duwan maadaama uu ka fadhiistay xoog uu ku shaqaysan jiray. waa kan isagoo faahfaahinaya dhibaatooyinka la soo dirsay. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee dibadaha joogtaan salaamaya salaanka bacdi anigoo 114 ajirka quraanka ku salaamaya. walaalayaal waxaan ahay ruux 70 jir ah 70 jirkaas oo dhaawac iminka ku fadhiyay 5 sannadood. haddaan 5 sannadood ku fadhiyay wax ii qabtay ma ay jiraan oo ehelnimo wax iigu qabtay. adduunyo aan leeyahay oo ii xareysan neefna allaha ka dhigay ee ma jiraan. awalan xoogsatadaas baan ahaa xamaalatada ee dhulka ilaahay ka xamaalata. waxaan idinka codsanayaa in la isoo caawiyo oo aad ay arintaydaasi ay in badan aan ula rafaaday reeruhu ay xanuunayaan aan gidaar seexdo hooy la'aan iyo hanti la'aan. waxaa idiin kordhinaya wararka aan idiin sheegayo dadka ila jooga ee walaalada waa shakhsiga sida uu idinka warramayo ay arintiisu tahay waa 70 jir curyaana aad iyo aad buu cawaran yahay. wax allaale iyo wixii islaam meel kastaba ha joogeene waxaanu leenahay wixii kari kara in sadaqad ay siistaan shakhsiga waa sida uu idin sheegay maal male ubadna male adduunna male ehelkiisana kamid baan ahay. laakiin waxa weeye shakhsi aan ehelkiisa inta wehelsaana waxba haysanay ay waxba dhaamin. shakhsiga wax allaale iyo wixii islaama waxa weeyaan ee walaaladiisa ee muslimiina si kastaba xaaladu aabbahan ayaa sheegay isla markaana codsiyo kala duwan dhammaan ummadda muslimiinta inay ku soo eegaan naxariisnimo isla markaasina ay ka soo qayb qaataan baahiyihiisa aan leeyahay oo ii xareysan neefna allaha ka dhigay ee ma jiraan. awalan xoogsatadaas baan ahaa xamaalatada